talooyin kooban oo ku saabsan jacaylka iyo xiriirada part 2. markaad la murmayso jacaylkaaga mid xusuusnow, dagaalka wuxuu u dhacayaa sidan: adiga iyo lamaankaaga oo hal koox ah versus kooxda labaad oo ah dhibka waqtigaas xiriirkiina haysta. kama filan kartid qof inuu ku jeclaado haddii aadan baadiga naftaada jeclayn. micnaha haddii aad qof saaxiibtinimadiisa ka hesho ma ahan sidoo kale haddii aad xiriir bilowdaan inaad sidii hore oo kale uga heli doonto. ma ahan micnaha hadduu qof kuu jeclaan waayay sidaad adiga rabtay inuusan kuu jeclayn sidii ugu fiicneed ee uu kuu jeclaan karay. waxay qaadataa mar waliba laba qof oo faraxsan in la helo xiriir farxad leh. haddaysan fursad labaad dunida ka jiri lahayn, dhammaanteenaba iskaabulo ayaan wada ahaan lahayn. haddii aad bis aragto inaad xusuusihii hore jeceshahay inka badan xiriirka aad hadda wado, waxaad joogtaa waqtigaad xiriirkaas ka socon lahayd. marka laga hadlayo waxyaabaha loo baahan yahay si uu xiriir u guulaysto, jacaylku wuxuu soo galaa kaalinta afaraad. koowaad waa daacadnimo, labaad waa is-aaminaad, saddexaad waa is-xushmayn. markaas kadib ayuu jacayl meesha soo galaa. markasta oo aad jacaylkaaga waxyaabaha aad adag kala hadlayso, gacantiisa ama gacanteeda qabso. taas waxay keentaa inuu qofka dareenkiisa dego, wuxuuna qofka dareemaa in la jecel yahay. noqo nooca lamaane ee aad rabi lahayd canugaaga mustaqbalka inuu xiriir la yeesho. adinkoo isku xanaaqsan ha seexanina habeenkii, subaxii xaaladda sidii hore way ka darnaan doontaa. mar waliba soo jiido lamaantaada ama lamaankaaga xitaa haddii aad xiriirkan ugu fiican ku jirtaan, sababtoo ah haddii aad adiga soo jiidan weydo qof kala soo jiidan doona. hadduu qofku ugu hanjabo inuu kaa tagaayo, bixitaankiisa lagu caawiyaa. siro badan ha ka qarin lamaankaaga, been badan ha u sheegin, sababtoo ah ugu dambeyn wax kasta waa laysaga daba imaan karaa. mararka qaar waa inaad caqli isku yeeshaa oo aadna iska fasaxdaa qof xitaa haddii aad jeceshahay isaga. way xanuun badan tahay, laakiin xanuunka mustaqbalka ayaa ka darnaan doona kan hadda. xiriiradu looma baahna inay adeeg ahaadaan. hadduu xiriirka adag yahay, waxaad la socotaa qofkii qaladka ahaa. intaas ayaan kusoo koobay guys. I hope inaad ka hesheen muuqaalka. hadday saas tahay, like muuqaalka. insha Allah til muuqaalka xiga waxaan idinku dhaafay khayr iyo caafimaad badan. guuleysta dhammaantiina.